dhammaan asxaabta la socota janalka Qaraaxa Tube fadlan ku soo dhawo janalkeena subscribe dheh si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha like na saar muuqaalkan una share garay asxaabtaada kulamo ka tirsan Premier League ayaa la ciyaari doonaa iyadoo ciyaarta ugu xiisaha badan ay dhexmari doonto Huddersfield Town iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay mari doontaa tijaabo ah in la ogaado sida ay ku bilaaban doonto horyaalka Premier League maadaama isbedel weyn lagu sameeyay kooxdan tobar cusub ayaa loo dhiibay Mauricio Sarri sidoo kale kooxdan waxa ay dhammaan ciyaartooydeeda hadda u soo laabteen ay isku diyaarinayaan sida ay ula qabsan lahaayeen kooxda tobaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Mauricio Sarri wuxuu ku dadaali doonaa inuu inta badan isticmaalo weerar taas oo ka duwan shaxdii uu isticmaalay Antonio Conte ee shanta difaac ku dhisnayd Huddersfield Town waxaa ka maqan ciyaartooy muhiim ah balse waxay rajeynayaan inay helaan kulankan Chelsea waxaa line-upkeeda kusoo bilaaban kara goolayaha ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta Kepa Arrizabalaga oo maalintii xiritaanka suuqa kaliibsiga kaga yimid kooxda kubadda cagta Atletico Bilbao. Chelsea waa marti garoonka la yiraahdo John Smith ayay ku ciyaari doonaan. Kovacic ayaana kulankan diyaar u ahayn inuu ciyaaro si lamida William Hazard ayaan sidoo kale yana kusoo bilaaban karin ciyaartan. Sarri wuxuu rajeynayaa in N'Golo Kante iyo Olivier Giroud uu isticmaalo kulanka uu wajahayo kooxda kubadda cagta Huddersfield Town. Kooxda martida loo yahay ee lagu magacaabo Huddersfield Town ayaan badin 8 kulan ee ugu dambeysay ay Chelsea la ciyaartay. 5 kulan waa laga badiyay, 3 kulanna bareejay galeen. 2 gool ay Chelsea kaga badiyeen 1963 bishii Maarso ayna ahayd horyaalka Division 2 ayna ciyaarayeen labada kooxood. Marka gurigeeda ay joogto kooxda la yiraahdo Huddersfield Town ayaa laga adkaaday mid walba oo kamid ah 4 kulan ee ugu dambeysay ay Chelsea la ciyaartay. Sidaas darteed rikoor fiican kama haystaan marka ay Blues wajahayaan. Chelsea lagama badin 8 kulan ee ugu dambeysay Premier League oo ay booqatay kooxdan. 6 jeer ay badiyeen, 2na bareejay galeen. Tan iyo guuldaradii Leeds ee December 2002 marka laga hadlayo Yorkshire gobolka la yiraahdo booqashadooda. Chelsea way ku guuldareystay inay badiso mid walba oo kamid ah 2 kulan ee Premier League ee ugu dambeysay 2017-2018. Sidaa darteed Blues waxay iska ilaalin doonaan guuldaro saddexaad oo xiriir ah inay soo gaarto. Ciyaartan waxay soo gali doontaa 11 saac oo galabnimo. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan iyo channelkanba. Waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe dhahdo sidoo kale u share gareyso asxaabtaada like na saar muuqaalkeena. Mar walba waxaad heli doontaa wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Mahadsanid.